sideeda bini aadamku ilaahay baa wada abuurtay ilaahay hadduu wada abuurtayna wuxuu siiyey samac iyo basar wixii xun isku diido wixii fiicanna uu ku aqbalo wixii danihiisaana awood uu ku qabsadaa ilaahay siiyey dabeecaddaas inagu wareegsan oo si kastaba aynu arkayno oo dabayl leh oo bad leh oo biri leh oo beer leh oo xoola leh ilaahay bini aadamka ayuu ka sara mariyey wuxuu siiyey awood uu ku bedelo uguna tasarrufo sida isagu isdoonay had walba ciddii fahamtay awooddaas weyn oo ilaahay siiyey waxbay ku qabsadeen dhibaatooyinka dabeecadda kaga imaanhaya ama bini aadam kaga imaanhaya markaa ugu tabaabushaysteen waxay ku qabsadeen waa anfaceen qolo walba noloshoodii ayay ku hanteen qoladii karteen waxay kaga baxeen faqaaradii waxay kaga baxeen jaahilnimadii waxay ku qabsadeen danahoodii ayay ku xaqiijiyeen kuna sugeen inaan dhibaato ugu imaanin ama ay dhibaatadii ka timaadaba ay uga gaashaanteen say uga hortagaan markaan sidaa leeyahay waxa weeye ururta awooddii ilaahay ina siiye ku camalfalkeedii allah ina garansiiyo shacbiga Soomaaliyeed bini aadamkaas kale tuu ka mid yahay oo badan haddana waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiir ah isku dul nool dadku faqiir weeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xoolo ka badiyay hawo fiican buu siiyay kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaasan qabayna adduunka meelo badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedela oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabaysh iyo balaayo waaweyn la isaga celiyo naga aad baa ilaahay noogu roona laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaalba hayna aaminsiiyo inaynaan waxba qabsana iyaga barino hayna aaminsiiyo haddana waxaad moodaa inaynu fiqiirnimadii kula nool lahay sababihii la imaanhayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanayo dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalami way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tijaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan lahayiin faa'iido darradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakerta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lu ku leeyahay ajnabi uslu ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahad inta aaminaan ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaanin waxaad cid kale ka sugtay ma ku dhergin karaane maya ma ku dhergin karo barya aadan ma ku dhergi karaysaa weligaa kuma dhergaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyey dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinu intaas weeye diinta aanu gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahnayay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaarsiiyey tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka ah wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay
haynoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qowlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasoo ha noqota asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimadii la tirinayey ama tawriyiintii la tirinayay magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka Soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay go'aarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahan fuliyaalkii adinka weeyaan waacidinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyaga iyo wasaaradooda yaa mas-uuliyadda dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin maciishadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskanno iyo nafteenna maynu qof yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuuro geed lima inuu bixiyeen kala arkee oo geed babaaya ku abuuro oo geed cambaa ku abuuro waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaa nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba cadmarada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay ku tasaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinima ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa muslimkaan inay ku leexiyaan wax badan aan ka hadlay arrintan ana kala taliyay shacbiga Soomaaliyeed dhibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay laga maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaan oo faa'iido u keenayo inuu jirin talabaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobkii bilaqaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka foolxun jira kuwiya la dhacaya wariyaha laga qaadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin foolxun weeye aad iyo aad u foolxun arrintaas waan ka hadlay hadda kahor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xalaaleysanayo qof aan waxba qabin oo Soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer qof ay u banaantahay ma jirto waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay ka waantoobaan arrintaas tan kaleeto waxay la tahay nin walba waa ogyahay baahi badan baa jirta baahidan hadda ka hor baa oran jiray biyo sacbadeeda looga dhirgaa haddaynaan u jeedsanin intaanu xabadda iskula jeedno inaan dalkeena wax ka soo saarano waan ogtiina laga soo saari karo beeraha laga soo saari karo badda laga soo saari karo xoolaha laga soo saari karo haddaynaan xagga u jeedsan ee aynu inagu isku jeedno waxaa iman doontaa ayaanu in la iscuno haddii markabkii jinnuhu la sugi jiray waxaad moodaa inaanu markaanu qaldaad samaynay inayn isagana waxba ka soo soconin marka soo beeraheenna iyo baddeenna iyo xoolaheenna isma u dhana waxaa loo baahan yahay halkaas in loo leexdo oo fidnadana laga baxo khayr ku jira fidnada ma jirto khariya adduuntoona aad baan ugu codcelinahayaa aniga oo runtii ka urxun inaan hadda ka hor 100 goor inta ka hadlay haddana aad moodo inaan cudurka jira u siin haddana waan ku xajinaya waanaan ku codcelinaya inay u dhaqaaqaan inay beerahooda fashaan baddooda ka kalluunsadaan xoolahooda dhaqdaan dhibaatada tan ka baxaan
dagaalka xabadana ay joojiyaan baan aad iyo aad ugu adkaynaya waxay ugaad goleeyihiin haddaad garaani weydaan waxay ugaad goleeyihiin haddaad garaani weydaan